بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله الصوماليد ملك شوكتان بإله سبحانه وتعالى هدوكوا ما يلو عدي اللي بنبك الله كقادو عدي دل الله وفي انت باهن الله داقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستان لغن الله نوغدب ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob. qodobka ugu horeeya dastuurkii la bedelay, xaqiiqatan waxyaabo aanu filaynay inay ka maqan yihiin oo weli ku jira kelmadaan ka waranaya. Ethiopia oo xiriirkii loo jaray, safaaradoodiina safiirkii la cayriyey, qunsuladihii ku yaalay ama qunsuliyadihii ku yaalay Garowe iyo Hargeysana la amray in la xiro. iyadana kelmad baan ka oranaya. magacaabista Sambaloolshana kelmad baan ka oranaya. Puntland oo iyaduna ka hadashay Ethiopia xiriirkii loo jaray iyo safaaradihii qunsuliyadihii la yiri hal xiro, إن كلمة بك أورنيا. marka ugu horeysa dastuurka waxaa ku jira warqad baa laga hor akhriyay dadka xildhibaanada ah. warqadda waxaa lagu sheegay qodobo diinta taabanaya in dib loo dhigo. dastuurkii la saxiixay nuqulkaan helnay wixii waa ku jiraan. waxaan la yaabanaa beesha caalamku dabaaldegaysan arkoole 18 waa soo dhaweynaynaa, laakiin ka badan baan rabnaa. beesha caalamka dastuurka Soomaaliya waxba kama quseeyaan. beesha caalamku waa ajnabi, inay caalamka ahaataan la rabaa. Soomaaliya arrimaheeda u khaaska ah, dastuurka iyo qawaaniinta daleeyahayna dadkiisa degsada. waxaa dhibkaasoo dhan inoo keenayna oo saddexdan shay hadda aan ka hadli doono kulli saldhig u ah xasan sheekh maxamuud ma aha runtii qaa'id iyo liidar ummadda Soomaaliyeed hogaamin kara inuusan ahayn. marar badan baa sheegay sifaad wuxuu leeyahay aad u fiican iyo sifaad wuxuu leeyahay kale oo iyaguna aad u khariban. sifaadkiisa khariban too much ka waxaa ka mid ah inuusan dan ka lahayn dhibaato dhacaysa. dastuurka waa bedelayaa, war dad baa kula leh, war sug, war u kaadi. waxaan bedelay qalfoofkiisa, inkastoo uu ka laabtay oo qalfoofkii daayay. qodobadii uu ka hadlayna ay ahaayeen qodobo intooda badan amendments ah. waxaan rabaa culimadu inay dib u baarto. culimaan u diray joogta Muqdisho, welina waa ka sugayaa nuqulkaan helay oo saxiixan. way ku jirtaa qofku inuu diintu raba haysan karo, diintu rabana ku dhaqmi karo. xorriyatu diin inuu qofku leeyahay. qofka muslimka ah waa cabdi weeye, addoon weeye, yuu u yahay alle subxaanahu wa tacaala. xor maaha, diintu rabana ma qaadan karo. ina addiina cinda allahi alislaam. qadiyadaas waa qadiyad meel ka dhac ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo diinteeda iyo qawaaniinteeda iyo sharciyadeeda iyo dastuurkeeda, dhaawac ku ah, dhibna ku ah, ceebna ku ah madaxweynaha iyo ciddii kala shaqaysay arrintaas inay samayso. waxaa laga sheegay guddoonka inuu yahay cidda cadaadisku saaran yahay oo gaaladu ay cadaadiska saarayaan. guddoonku dad wax garanaya maaha. horaan marar badan u sheegay, ma raba inaan sii wado. dadaan waxba aqoon adduun iyo aakhira midna waxba ka garanayn baa dadka hoggaan u ah. madaxweynuhu dastuurkaas wuxuu ku dhaxlay. maanta oo aan hadlayno madaxweynuhu waa dead man walking, waa meyd socda wey. macnaheedu maxay tahay? maamul goboleedyadoo dhan baa ka hor imaan doona. maxaa yeeley wixii ay ku heshiiyeen oo dhan wuu ka baxay, wax cusub buu la yimi. kuwii horoo ka caraysnaayo iyagu maqnaa oo Puntland oo aan ka hadli doono arrinteeda ka sokow, kuwii kalena waa baxeen oo iyaguna way baxayaan. waad maqli doontaa one by one iyagoo isdaba socda. waa dhici kartaa inay sugaan inta doorashadooda u dhacayso, laakiin kulligood waa baxayaan. maxaa yeelay wixii ay kula heshiiyeen madaxweynaha kuma jiraan, wax dheeraadoo kalea ku jira. ma garanaysaa? marka hadduu bedelayo wixii hore, islamarkaasna uu ka baaqsaday inuu kulan la yeesho NCC shirkoodii qabto, waxay u arkeen dabamaryeyn. madaxweynuhu marka leadership failure badan oo dhaqankiisa ka mid ah baa jira. dagaal buu ku qaaday argagixisada, waa fail garow.
dagaal buu wuxuu ku qaaday dastuurka waa faylgaroobay waa keligii maanta kow arrintaa marka dastuurka khaladaadka ku jira halayna ka hubiyo oo weliba khaladaad diineed hadday yihiin dadku ilaahay ka cabsadeen waxaa la yaab leh baarlamaan 254 qof ka kooban oo waxa ay saxiixeen aan aqoon waxay gacanta u taageen ma yaqaaniin waxa ay baasiyeen oo ay doorteen ma garanayaan mana hayaan arrintaasi waa arrin la yaab leh runtii waa level cusub oo baaba ah oo dowladnimo aqoon la'aana oo mushkilo ah oo treason maxaa baasisay يعني waxyaabaha secretka ah oo aan la ogolayn in publica loo sheego in laga qariyo dastuurka in laga qariyo baarlamaanka intiisa badan waa arrin macquul oo sax oo national security ga taabanaya laakiin arrimaha kale oo sida dastuurkii dhammaan dadku ku dhaqmi lahaa dawladdu sababa gelin meelaha iyadoo ay leedahay oo baraheeda ah si looga akhristo dadkii looma qaybin oo intay iska soo akhriyaan oo saddex akhris maraan oo guddi ba akhriyay baasiya waa la baasiyay intaas la qoray ani dhaqan xumay tusaysaa qodobka intaasan ka hormay qodobka labaad Ethiopia ayaa safaaradeedii la xiray laba qunsuliyadood oo ay ku kala leedahay Garowe iyo Hargeysana waxaa la amray in la xiro 7 cisho gudahoodna ay kaga urursadaan saan ognahay dawladnimada iyo dawladda haddii dibadda uu kaga yimaado cadaadis iyo colaad qofka u dhashay dawladda ama muxaafid ha ahaado ama mucaarid ha ahaado waa inuu dawladda garab istaaga waa hadduu dawladnimo rabo uusan wax kala doonayn haddii Soomaaliya dawlad loo raadinayo dawladnimada yaan tafaha la qabsan dawladnimada iyo shakhsiyaadka hala kala garto Ethiopia waa cadow soo jireena dal aan leenahay bay haysataa daris baan nahay waxba ina dhex mari kara laakiin iyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya hadday isqabtaan dadka mucaaradka ah iyo inta muxaafidka ah waxaa la doonayaa inay isxakameeyaan wadaniyadu ay timaado first and foremost wax walba ka horeeya waa dalka iyo dawladnimada iyo xorriyadda iyo madax bannaanida Soomaaliya qofkaan intaa garan karin anuu qofkaan la hadlayo maaha qofka adiga kuma socdo adeer dadkaagii raadso kuma jira anigu dadka la rabay inaad dhageysatid anigu kuma jiro waxaa la rabay dad qowqaa'iyiina oo qabyaalad iyo qabiil iyo balaayo iyo musiibo diin ay u tahay diintoodii baa qabyaalad noqotay ilaahay diintiisa iyo qabyaaladda jecel kuwa la hadli maayo waxaan la hadlayaa qofkii wadaniyad garanaya oo dal garanaya Soomaaliya xaq bay u leedahay hadday dareentay in ciriiri la geliyay inay iska celiso ciddii ciriiriga gelisay oo ajnabiga waa in lagu taageero la garab istaaga ceebaha ay Soomaalida mucaaradkoodu leeyihiin bay ka mid tahay in laba safto ajnabiga kan hadda madaxweynaha baa ka mid ahaa kuwii la safan jiray Kenya difaaci jiray waagii xiriirka loo jaray Ethiopia difaaci jiray saasu yani meel walba wuxuu la taagnaa hadaladiisii baa wada duuban dad baa eriyay oo dad hadda aragtaan gaalo u galaya ama ajnabi u galaya iyo wadamo kale hoos galaya hadda aragtaan oo Soomaali ah dawladda cayrisay isagaa lahaa isagoo justification u sameeyay Garowe kalaha meelo badan oo kale u ka yiri ma arkaysa marka dhaqan xumada mucaaradka xilliga la yahay lagu dhaqmo hadhowbay qofka markuu isagu muxaafid noqdo ama dawladii uu gacanta ku dhigabay daba socota oo daba gasha hadalladaadii ka duubnaa baa laga helaya qofka waxa la doonayaa mowqif iyo mabda' leeyahay consistency joogto wax kastoo isbedela adiga mowqifkaagu waa inuusan isbedelin hadduusan khalad ahayn markii hore mabda' waa inaa leedahay dawladnimada marka dhisideeda Ethiopia inay dawladdu cayriso iyada xaq u leh maxaa yeelay arrimaha dibadda iyada xaq u leh heshiiskii lagu heshiiyey federalismka abu ah dood waxaan dhageystay reer Puntland nin ka mid ah oo wasiir hore ahaa oo la yiraahdo Dhabancad uu leeyahay anagu waaba kala noqonay aqoonsigii baan kala noqonay dawladda dhexe wixii ka soo baxa laamaheeda dastuuriga ahna nooma yaalaan kadib markay dastuurkii bedelatay markaysa xasanow waxyaabaha aan lahayn intaa ka hadlaynay ka mid tahay dadka ha kala fogeyn ha kala dirin ha kala irdhayn waxaan waa lagula wadaagaa dastuur markaa ka hadlaysid kitchenkaaga warqad lagu maamulayo qori maysid ganacsi adigu aa leedahay policy iyo procedures u samayn maysid waddan
ummadii kula leedahay 22 milyan baad waxaad leedahay waxaan go'aan ka gaarayaa dastuurkii ay ku dhaqmi lahayd yaa adiga ku siiyey awoodda intaa leeg kala tasho keligaa ma lihid sidaad horay u tiri madaxweynuhu inuusan lahayn baarlamaankuna uusan bedeli karin markii uu kii kaa horreeyey joogay oo bedelayay baarlamaankiisu aad lahayd ma bedeli karaan mana haystaan awood ay ku bedelaan baadan adna u lahayn marka just take it easy waxyaabo badan oo aan fiican baa ku jira oo aad bedeshay oo aad ku dartay oo aan rabno laakiin dad bay rabtaa in lagugu raacay rabtaa fulin bay rabtaa iyo meelay ka hirgasho ma meeyarka muqdishaa tahay soo inay ka shaqayso ma rabtid soomaaliya oo dhan awal baa qaybay maqnayde ma qaybo kalaa ku dartay waxaa ka dhashay etoobiya inay kaa shaqaysato maadaama ay istagaasheen waxaa kale oo cillada oo halkaa ku jira safiirkaanu inuu hadda joogo ma ahayn January 1st in la cayriye safaaradaha qunsuliyadahaasna la xiro maalintaa puntland waa ku taageeri lahayd soomaalidoo dhammina waa kugu raaci lahayd laakiin markaa iyagii gudihii aad kala dishay oo aad kala tagteen oo puntland adigu faquuqday inaad tiraahdo haddaan xirayaa oo safaaradoodii cayrinayaa qunsuliyadoodiina xirayaa hadda waa mushkilo maamul xumadaaday tusaysaa waxay ka mid tahay yacni maamul awqaadda wax loo kala dibdhigto iyo prioritizationka maba kala taqaanin imankaa safaaradooda xiraysid diyaaradoodii waa degaysaa soomaaliya ka degaysaa safaaradoodina waa xiraysaa ganacsigooda caadi buu socdaa soo ma kala horreeyaan ganacsigaa horreeya intaan diblomaasiyadda iyo xoogga la gaarin ciidankoodii sooma joogo dalkii oo dhan bayba haystaan meelo badan bay iyagu atoore ka yihiin oo iyagu ciidanba ka yihiin iyo dowlad soo ma kala horreeyaan soo inay kugula heshiiyaan oo heshiis kugula yihiin maamul goboleedyadu maaha soo kulligood kaaga soo hor imaan mayaano koonfur galbeed askarta u joogta jubbaland in badan oo ka mid a askarta joogta hiiraan oo hirshabeelle ah ciidamada jooga kulli waa etoobiyaan maxaa talaa soo qorshe uma baahna ma layska ordayaa xasanow sidaani dowladnimo maaha dowladnimo aqoonna maaha hoggaanna maaha etoobiya waxaana loo sheegaa diyaaradda oo dhaawac ku keeni lahayd dhaqaale oo aanu ku lahayn 3 bilood oo lasoo dhaafay warxir diyaaradooda jooji aan ku lahayn ya waxaana loo sheegayaa villa soomaaliya dad ka mid a iyo xaafadaada inay ka nafacsadaan oo safarkooda ay lacag ka helaan inay hay-addu lacag ka hesho ashkhaas in lagu naasnoojinayo dowladayn iyo ganacsi isma galaan mid baad qaadanaysaa ama kursigaad qaadanaysaa ama lacagtaa qaadanaysaa laakiin labadoodaba inaad isku heshid waxaa ka dhalanaysa waxaasa ujeedid oo ah fashil total loss ah oo dowladnimadiiba aan la garanayn meel lagu sheego dowlad baa laguu dhiibay bilaahi calayk dhisan ciidan moral leh oo dhaqaale leh oo dowlad lacagi uga buuxda akoonada oo maalin aan laga wada hadlin fakri iyo gaajo oo saa u duulaysa oo maamul goboleedyadu dhaqaalahooda helaan oo dhowr ka mid ah ay garab taagan yihiin dowladda ma ujeeda sidaana aysan uga hor imaanayn cid safri jirtay oo u safri jirtay dibadaha iyo etoobiya loo xarman jiray albaab lasoo xiray buu ahaa dib baa u furtay maamul xumadaada iyo is-adkayntaadayna ka mid tahay inta laydin dhex galay adiga iyo puntland ninka madaxda ka ah oo waxaa isku haysaan aad idinku taqaanaan dhaqaalaad isku haysataan personal interests baa isku haysataan cidna u danayn maysa adna muqdisho iyo federaal iyo soomaaliya u danayn maysid isaguna puntland iyo dadka reer garoowe iyo gobolka puntland la yira dega u danayn maayo idinka armaaba laysla kiin dhacayaa oo hal qolo idinku ciyaaraysaa jees armaaba laysku kiin dirayaa oo shaqo laydinka hayaa armaydinaanba rabin oo heshiis ku tihiin dowladnimada inaad burburisaan arma xaftara rabtaan inaad noqotaan waxaasoo dhan waa su-aalo qofka muwaadinka maskaxdiisa soo gelaya labadiina way imaaraadkaad u ribood garaysaan imaaraadkuna waa isku kiinsii diraya idinmana kala dhicinayo wax la yaab le wey qodobkaasna intaasa ka oranaya puntland waxaan kaloo rabaa inaan intaanan puntland u gudbin sanbalolshe madaxweyne kud ka guur oo qanjo u guur baan maqli jiray nacam nin shabaabaa tegey oo intaa aanu ku lahayn war ninkaasi waa shabaab dalka isagaa dadka baabi'inaya
انت قرح حدا دعينا كو ايديسن كي ugu dambeeyo adiga ka xanaajiyena oo aha SYL kuwa ka horeeyo ka balaysan xayaad baa jiray xayaad maxaa ka dhacay meel ma ku sheegtay aaway hotelkii kugu dhaganaa adiga madaxtooyadaada ku dhaganaa aaway oo wasiirka lagu dhaawacay aaway xogtoodii meeday xogtii aaway maxaa loo baari waayay dadkaa kala duwan miyaa qabyaaladii dowladnimo maaha ma ujeedaa madaxweyne qabyaalad iyo qabiil sanbaloolshe waa qabyaalad qof laga dhigay wixii uu ku hadli jiray baa daba socda waxaa u dheer waa jaajuus TPLF waa ninkii isagoo golaha wasiirada fadhiya raggii la sheegayay buu ka mid yahay teleefoonkooda inuu ka furnaa oo teleefonka intuu furo Addis Ababa laga dhegeysanayay shirka wasiirada Addis Ababa laga dhegeysanayay madaxweynaha waxaan ka yaabay isagu cid fiican maba haysta miyaa ma wax wada mujrimiin ah buu intaa recycle ku wadaa soo sanbaloolshe maahay ninkii qirtay ummadda Soomaaliyeed horteeda inuu treason galay soo isaga maahayn soo isaga ma ninkii qirtay qalbi dhagax inuu xirtay ka soo qabsaday gaalkacyo galmudug xirtay keenay madaxdii dalka been u sheegay ay ku cadeeyeen cabdi xaashi ay ku cadeeyeen gadaal kaga cadeeyeen uu u sheegay inuu yahay nin raba inuu isagu socdo oo isdhiibo oo baasaboorkiisa wata oo raba inuu heshiis la galo oo yiri madaxdii TPLF waxaan ka mid ahaa madaxdii ONLF waxaan rabaa inaan dowladdeeda la heshiiyo intaan lay soo qaban idinku igeeya ninkii ku yiri soo maaha ninkii qirtay oo yiri raaligelin baa ka bixinaya qalbi dhagaxna siinaya ummadda Soomaaliyeed soo isaga maahayn ninka treasonka galay markii uu joogay Nisa baa Nisa ku celinaya Nisa ninkii hadda ka tagay baa scrap ka dhigay iyadoo ah 10 top baa lagu dhigay madaxweyne 10 top in Africa Intelligence Journal ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa qoray baaritaan lagu sameeyay qiimaha iyo sirdoonka iyo wardoonka ay leedahay been aad ciyaal inta lacag loo qaybiyo idaacadihii Muqdisho ka shaqeyn jiray oo dhan haday journal tahay haday radio tahay haday television tahay inta lacag loo qaybiyo Facebook iyo social media la faafiyay waa laga raystay kuwa hore shabaab aha waxa ku shaqeynaya kan maxaa kala soo duntay Ethiopian cayrinaya jaajuuskeedina shaqaan u dhiibaya oo waxaan u dhiibay sirdoonkii dalkan u dhiibaya oo maxaa ka xumaaday maxay uga baahan safiirku jaajuusnimo u joogay haddii jaajuus kale aad u geysay meeshii waliba sirdoonka ahay maxaa ka xumaaday waxba kama xumaan war waxaan dowladnimo maaha lamana fahmi karo madaxweyne sida isu dhaan sidaani dowladnimo maaha dhalinyaro yaryar oo jaamacada ka baxayo PhD iyo doctor ah oo dhalinyaro ah oo hadaa qabyaalad ku mushkilaysan tahay oo musiibo qabyaalad ay ku hayso yaryar kula qabiila jireen oo sharaf iyo aqoon iyo karaamo leh oo aan history khariban lahayn maxaa ugu wareegaysaa nimankii remnantska ah oo kharibnaa oo la yaqaan in yar xoogaa maxaa u recycle garaynaysaa maxay intaas uu ku daba socdo asxaab hadaa laga saaxiibada lacag si laakiin dowladnimada ha siin hana ku ciyaarin sanbaloolshi magacaabadiisu dhaawac bay kugu tahay credibility-gaaga oo awalba tacbaan ahaa dhulkay la gashay Puntland baa isoo hartay Puntland xaq uma laha dowladda dhexe inay u gacan dhaafto dal ajnabiya garow accord 1 iyo 2 wixii lagu heshiyo lagu saxiixay federalismka bay ka mid tahay doodan dhaban cad uu leeyahay maadaama aanu kala noqonay kalsoonidii oo aanaba u ictiraafsanayn inay yihiin dowladda dhexe dan kama lihin awaamirtooda soo qaybi oo xukun wixii ay rabtay gaaladu soo maaha Ethiopia soo intay rabtay ma soo Muuse ma haysan soo bad iyo dhul baan siinayaa ma ahayn soo idinkana idinma qaadan soo dalkii marka la kala furfuri maayo dowladnimadii ninkaas haddii uu dhibaato sameeyay ma ina uga dartaan baa idinkuna Siciid ma ina uga dartid oo burburisidba mise waa inaad tiraahdo warigaan waa meel fiican baa ku socotay shirweynaad iclaamisay garow ah la isugu yimaadaa tiri dhabarkaad ka toogatay qadiyadii garow ka dhici lahayd adigaa dhabarka ka toogtay waa lagu faraxsanaay dadkoo dhan waa kuu imaan lahaa siyaasiyiinta waddanka jooga oo dhan baa kuu imaan lahaa waa lagaala qayb geli lahaa madaxweynaha waa la soo qaban lahaa hadduu diiday inaa wada kulantaan oo laydin dhexdhexaadiyo mar kalaa la soo khasbi lahaa waa la garnaqsan lahaa waa la heshiin lahaa laakiin inaad u boodid oo treason action ah ku dhacdid oo dowlad dalka laga mamnuuco laga saaray ay tiraahdo way joogayaan
arrintaasi arrin saxa maaha dowladnimadana inay wax yeeshamaan wax tari mayso adiguna waxba ka faa'iidi mayso aan ceeb ahayn iyo foolxumo iyo taariikh madow inay reer puntland dowladda garab ordaan kalaama uguma jirto sharaf xumay ku tahay ceeb bayna ku tahay marka inaa halkaana marisid siciido waa kaaga digaya kada dowladda uga dambee ajnabiga marka koowaad iyadaa iskale arrimaha dibadda marka labaad hadday qola isqabtaan ha uga hiilin ninkaa is haysaan macnaheeda cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa lama rabo dalkaagii weeye wax waddani baa tahay soomaali baa tahay adaa iskale dalka waxaa la burburinaya oo loo kala etoobiya kala laaluushayso oo qaarba meel u kaxaynayso waa adig iyo dalkaagii iyo dadkaa hogaamisay marka arrintaas dib ha looga noqdo arrintana dhulka hala dhigo shir deg dega isugu imaada wada hadla ka heshiiya wax isku haysaan iska dhacsha cadowgana etoobiya waa dalka koowaad ee soomaaliya duulaanka ku ah dhul buyna ka haystaa mana rabto inay nadayso hadday rabtaa inay bad qaadato iyadoo marka aan la diriri karno inagoo dhan oo wada jirna inaan kala soconno faa'iiday u tahay iyagaa ka faa'iidaysanaya innagaana ku dhumayna arrintaas marka waa ka digayaa saxna maaha dhaqanna maaha dowladnimona maaha waxtarna uma aha reer puntland iyo dowladnimada midna uma aha waxtar ee waxyeelay ku tahay intaasaan odhanaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu